madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen ayaa maanta magaalada Jowhar ka daafuray barnaamijka daryeelka bulshada gaar ahaan caruurta iyo haweenka ku nool deegaanada iyo degmooyinka dowladda Hirshabelle. Furitaanka madashan ayaa maanta waxaa goobjoog ahaa wasiirada shaqada iyo arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Hirshabelle iyo mas'uuliyiin kale. Mashruucan oo ah mid muhiimad gaar ah leh ayaa muddada uu socon doono oo ah ilaa 32 bilood ayaa waxaa si mug leh loogu talagalay inay uga faa'iideystaan ilaa 5750 qoys oo ku nool degmada Jalalaqsi iyo deegaanada ku teedsan. Qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada oo madasha ka hadlay ayaa si baaxad leh u soo dhaweeyay mashruucan oo muhiim u ah bulshada ku nool deegaanada Hirshabelle. Balyaan leeyahay mashruucan inuu Jalalaqsi ka furmo waxaanan cod dheer ku leeyahay in degmooyin kale oo badan Hirshabelle bacdi ay hadda nooc casuumayeen UNICEF iyo cid kastoo naga taageerisay xaaladaha Hirshabelle ka jiro oo marna fatahaada marna abaarta webiga Shabeelle oo dhan degmooyin ku yaalo u baahan yihiin in la caawiyo carruurta anoo ka faa'iideysanaa fursaddan wasiirkii federaalka shaqada shaqaalaha hadduu joogo iyo tiimka UNICEF ba in degmooyin kale loogu daro Mudane Cabdifataax waa maasan tahay ballanqaadkii madaxweynaha oo Jalalaqsi ka sameeyay inaan maanta soo gaarsiiso si gooniyana waxaan leeyahay reer Hirshabelle fursadaha dowladda saani mar walba u furan yihiin intii hadda ay dowladnimada Hirshabelle ay xilliyadii ugu dambeysay markii cadawga laga adkaaday kadib howlo badan socday marka in howlaha socdo ee bulshada loo qabanayo laftirkeeda marxaatiyo badan loo yeelo oo sidaan oo kale maxaa la yiraahdaa loogu meel madal loogu furo oo dadka maxaa la yiraahdaa loo gaarsiiyo waxyaabihii loo qabanayo ama loo ballan qaaday waxaan isleeyahay qof walba waxay u noqonaysaa rikoor ay u noqonaysaa iyo hogaaminteena oo madaxweynaha nagu hogaaminayo ay rikoor fiican u noqonaysaa marka waa bogaadinaynaa wasiirada kale sidoo kale ayagana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in wixii mashaariic ah ka jiro sidoo kale inay u sameeyaan dhamaantiin waxaan u mahadcelinayaa intii kasoo shaqeysay dhammaan barnaamijkan waxaa ognahay dalka inuu ku galayo xaalad lenin la dhahayo ama abaar runtiina waxaan dareemayaa inay baahi weyn u qabeen maaragtay dadka ku dhaqan dhammaan dowladda Hirshabelle mashruucan waxaan rajaynayaa insha Allah taala si maaragtay fiican inay uga faa'iideystaan dadka u nugul gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka waxaan mar labaad idin bogaadinayaa dadaalkiina. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Hirshabelle Mudane Cabdifataax Xasan Faarax oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan. Mashruucan waxa uu ku yimid markii madaxweynaha uu socdaalkii nabadda ku marayay degmooyinka Hirshabelle ee dhanka bariga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa ugu jirtay ballanqaadka in ka badan 5,000 oo qoys oo dadka nugul ah oo hooyada iyo carruurta ah ee degmada Jalalaqsi mashruucaas soo gaarsiiyo madaxweynaha oo ku faraxsanahay in muddo kooban gudaheed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mashruuci ay ku lahayd markii socdaalka maraysay inay fulisay oo maanta adaa furayso degmada Jalalaqsi si rasmi ah uga bilaabanayo maanta wixii ka bilowda. Sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xildhibaan Yuusuf Maxamed Aadan ayaa dhankiisa bogaadiyay in mashruucan laga fuliyo deegaanada Hirshabelle gaar ahaan degmada Jalalaqsi. sadka warqabtiin cimilada isbedelka cimilada wuxuu noqday aafa ama dhibaatooyinka joogtay noqdaan annaga mar waxaa jira climate oo abaara jirta marna waxaa jira daad marka dowladda Hirshabelle waxay ka mid tahay dowladaha oo runtii ku guuleystay dhanka amniga marka waxaan aaminsanahay phase 1kii mashruucan wuxuu ahaa waxa lagu soo fuliyay dowladda Koonfur Galbeed iyo Somaliland iyo Puntland waa phase 2 hadda noo qorshaysan Hirshabelle iyo Jubaland laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay Hirshabelle meesha kaliya aan aaminsanahay inuu mashruucan ku guuleysan doono sababtuna waxay tahay runtii shalay markaan soo degnay waxaan aragnay Elborg ilaa inta almost 17 kilometers oo baabuur amni ah waxaan la sheegay above 16 inay tahay saas oo kale marka madaxweyne guul waaweyn aad keentay ilaahay ka abaalmarin waxaadna saldhig u dhigtay dowladnimada waxa muhiim u ah malafadhawr waa amniga mar amniga hadii la helo wixii yaraa oo la rabay dadka inay gaaraan waxay noqon doonaa si effective efficiently u gaari karaan marka madaxweyne waa guuleysatay annagana waxaa naga go'an
inkastoo aan ogahay mala in dadku wax la si aysan habooneen haddana mashruucan aan ugu eg mashaariicda kale la furi doono waxay noqon doonaan mashaariic runtii diiradda saari doona dadka inay mala iskooda u shaqeystaan ha noqdaan kuwa mala vocational training diiradda saari doona kuwa waxaa jira mala in SMEs ama iskala ganacsiga yar la taageeri doona madaxweyne waxaan aragnay Hirshabelle inaysan aan Hirshabelle mala oo la soo displaygram la soo muujiyay media lagu soo ma aha Hirshabelle is totally different way ka duwan tahay madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen ayaa ugu dambeyn daahfuray barnaamijka isagoona sheegay in muhiimad weyn uu barnaamijka u leeyahay dadka ku nool deegaanada Hirshabelle aad ayaan ugu faraxsanahay mashruucan oo la wada sugayay inaan maanta ka daahfurno degmada Jowhar oo ah caasimadii dowladda Hirshabelle mashruucan CSSB-ga waa mashruuc faa'iido badan u leh ummadda ku nool Hirshabelle gaar ahaana degmada Jalalaq oo laga fuli doono haddii la raalli ka noqdo mudane wasiir adiga wafdigaaga ku soo dhawaada dowladda Hirshabelle gaar ahaan caasimadii oo joogteen xalay iyo shalay maanta ku soo dhawaada aad aan ugu faraxsanahay inaad safar intaas aad u soo gashiin inaad ummadan wax loo qabto daruufaha badan la daala dhacayay runtii mashruucan xilligu ku soo aaday waa xilli baahi badan loo qabay sanadii la soo dhaafay saad ogtiin dalkoodii waxa baabiyay fatahaado ku soo noqday oo ilaa 3 sano 4 sano isdaba joogay sanadkaana haddana abaaro ayaa ka dhacay oo dadkii xareeda tacba jiray iyo dadka xulaaleyda ahayba aad u saameeyay waa marka laba duruufood oo kala liidan cidii beera tacba jirtay ee ku dhaqneeday beeraha noloshooda ay ku tiirsaneedna waxa saameeyay fatahaadii cidii xareeda tacba jirtay iyo cidii xoolo dhaqaysana abaariya saameeyay runtii waa culays iska daba yimiday ilaahay waxaan leeyahay ummadana ka qaado laakiin mashruucan hadda xilligu ku soo aaday waa xilli baahi badan loo qabay waa ku mahadsantihiin